salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. janaalka daawanaysa waa Baladi Official. hadday tahay marka ugu horeysa fadlan subscribe inoo saar, gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan fiidiyoyada aan soo gelinayno. maanta waxaan ka hadlayaa mowduuc ku saabsan waxbarashada Turkiga ee scholarship-ka, qaabka loo xareysto, dukumeentiyada lagaaga baahan yahay ka hor inta aadan xareysanin, qofka bachelorka, master degree-ga, PhD-ga. ugu horeyn waxaan ka bilaabeynaa qofka bachelor degree-ga. waxaan leeyahay qofka bachelor degree-ga waa inuu dhashaa ugu yaraan 1997 waa in da-diisa ay udhexeysaa 18 ilaa 21. meeshaas noqta waa 18 ilaa 21 inay udhexeysa da-diisa qofka xareysanayo bachelor degree-ga. maxaa looga baahan yahay bachelor degree-ga qofka markuu xareysanayo? kow waa inuu haystaa passport waa national ID-ga adiga qofka uu leeyahay waaye. waa labo inuu haystaa secondary school, shahaadada dugsiga sare waa in 70% uu ka haystaa ugu yaraan, ka badan waa la aqbali karaa. waa in uu haystaa sawir, waa inuu sawir tester uu leeyahay, waa inuu transcript haystaa, waa in recommendation letter ama reference letter qofba se u yaqaanaan waa inuu leeyahay qofka xareysanayo ee bachelor degree-ga. meesha waxaa ugu baxaynaa bachelor degree-ga waxyaabaha loogu baahan yahay ee Turkiya Burslari ama scholarship of Turkiya. waxaan galaynaa qaybta labaad ee degree-ga, master degree. qaybta labaad ee waxbarashada waxaa qofka waa inuu dhashaa la leeyahay 1988 waa in uu qofka udhexeeya da-diisa 22 ilaa 30 jir waa inuu qofka ahaadaa qofka xareysanayo master degree-ga of Turkiya. marka waxaan halkan ugu baxaynaa waxaa la leeyahay sidoo kale qofka master degree-ga waa inuu 70% haystaa shahaadada final examski. darajada masterka waa 75% waa in uu haystaa final examkeeda. halkan waxaa ugu baxaynaa darajada masterka ee qofka laga rabo inuu ku xareysto. waxaan galaynaa qaybta PhD-da ee darajada saddexaad ee waxbarashada. qofka loogu baahan yahay waxa waaye waa inuu dhashaa leeyahay January 1983 waa inuusan ka yaraanin micnaha da-diisa 30 jir ama 35 jir. marka darajada examska waa inuu haystaa 75%. waxaa leeyahay master degree-ga iyo PhD-ga dukumeentiyada labadaba waa isku mid. micnaha waxaa rabtaa in dukumeentiyadaas labadooda ay isku mid yihiin aan idiin sheegaya. marka waxaa wax yar idinkaga taabanayaa qaybta qofkii raba inuu micnaha caafimaad ahaan oo u xareysto. waxaa looga baahan yahay qofka caafimaad inuu xareysto, darajada looga baahan yahay inuu shahaadada ka haystaa 90%. waa inuu haystaa 90%. guud ahaan haddaan soo gunaanudno barnaamijkeena dukumeentiyada qofka laga rabo waxay tahay: kow, passport, waraaq dhalasho, transcript, shahaado, reference letter ama recommendation letter qofba se u taqaano. waa inuu qofka leeyahay CV-ga dadka laga rabo khaasatan waxaa waaye master degree-ga iyo PhD-da. waa labadaba haddii hore aa usoo shaqeysay, haddii maxaa lahay internship aa ka qayb gashay, scholarship-ya haddii dad wax ku caawisay, waxyaabo fara badan oo adiga micnaha oo CV ku galaayo haddii aa haysato waa inaad kusoo darsataa waraaqahaaga. intaa waxaa ugu baxaynaa dukumeentiyada laga rabay heerarka 1, 2, 3 ee waxbarashada Turkiya Burslari scholarship. scholarship-ka qofka haddii uu ku guuleysto muxuu ka faa-iidayaa? kow, haddii aad Turkiga imaato kolley bishii waxaa la siinayaa qofka bachelor degree-ga 700 TL Turkish lira. marka asxaabta ku xiran Baladi Official, haddii aad ku guuleysato Turkish scholarship-ka maxaa ku haboon in aad ka faa-iido? kow, waxaa leeyahay qofka bachelor degree-ga haddii uu Turkiga markaa uu ku guuleysto scholarship-keeda wuxa uu bil kasta heli doonaa lacagna 800 oo Turkish lira. qofka masterka haddii uu ku guuleysto scholarship Turkiga waxaa bil kasta la siin doonaa 1,100 TL oo Turkish lira ah. qofka PhD-ga ku guuleysto waxaa la siin doonaa 1,600 Turkish lira ah.
marka intaa waxaa usii dheer qofka wuxuu heli doonaa ticket free ah go and back. go marka adiga aad soo aadeyso Turkiga waa kasoo baxeyso Soomaaliya waxaa heli doontaa ticket free ah, ticketka diyaaradda. kadib markuu Turkiga imaado wuxuu heli doonaa caafimaad, health insurance, caymis dadba si u yaqaanaan, iyo kale wuxuu heli doonaa accommodation oo ah qofka waxaa la siin doonaa meel oo jiifto iyo cunno oo asiga free u ah. marka intaas waxaan kusoo gunaanudeynaa informationkii ku saabsanaa documentiga qofka looga baahan yahay markuu ku guuleysto scholarship Turkey of Burslari. marka waa ku mahadsantihiin daawashada videogan aad uu muhiim u yahay qof kasta oo Soomaali ah. waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad u gudbiso walaalkaaga haddii aad daawato, share, like, comment waa idinka sugeynaa. oo ku mahadsantihiin videoga xiga waxaan uga hadli doonaa qaabka loo xareysto scholarshipka hadda aniga aan ka hadlayay ayadoo oo dhameystiran ayaa idin soo gelin doonaa midka xiga. waa ku mahadsantihiin daawashada videogan mar labaad. thank you very much. Assalamu alaikum.